marka aad gelayso waraysi la xiriira socdaalka ama codsi magangeliyo waxaa muhiim ah in aan diiradda la saarin keliya qisada aad sheeganayso balse sidoo kale waxaa muhiim ah in la fahmo sida aad u muujinayso dareenka la xiriira dhacdooyinka qisadaada. Talo bixintan waxay iftiiminaysaa muhiimadda ay leedahay in sheekadaadu noqoto mid dhab ah oo saamayn leh, iyadoo sidoo kale la tilmaamayo kaalinta muhiimka ah ee fahamka luuqadda iyo doorka turjumaanka, gaar ahaan marka aad la macaamilayso saraakiisha iyo u qaybsanayaasha waraysigaaga. Waa Saacid Xaaji Aadan, soo dhawaada mar kale. Markaad sheekaynayso, gaar ahaan marka aad waraysi bixinayso sida socdaal magangeliyo, maqalka sheekada keliya kuma filna. Waxa kale oo muhiim ah in sarkaalka ku waraysanaya uu dareemo inaad adigu si dhab ah u rumaysan tahay waxa aad ka hadlayso. Dareenka ama emotionka aad muujinayso waa mid tilmaamaya sida dhacdadu kuu saamaysay, inaad si dhab ah u xasuusato dhacdada, iyo in sheekadu tahay mid dhab ah oo aan la samayn. Haddii qisada aad ka sheekaynayso tahay mid murugo leh laakiin aad u sheegto si iska caadi ah oo aan dareen lahayn, sarkaalka ku waraysanaya waxa uu shaki ka muujin karaa dhab ahaanshiyaha waxa aad sheeganayso. Sidoo kale haddii aad sheegayso dhacdo aan u muuqan mid murugo leh, waa in aan marnaba lagaa dareemin walwal badan haddii ay ahaan lahayd wejigaaga, codkaaga iyo guud ahaanba qaab hadalkaaga. Markaad isku dayayso inaad ka sheekayso qisadaada, xasuusnow in sheekadu aysan ahayn keliya wax la sheegay, balse ay tahay waayo aragnimo aad la noolayd. Dareenka aad muujiso ayaana ka dhigaya sheekadaada mid la rumaysan karo, saamayn leh, qalbigana taabanaysa. Wargelin muhiim ah. Xafiisyada Saacid Agency waxay kaa caawinayaan guud ahaan adeegyada kala ah: diyaarinta kaysaska iyadoo la raacayo shuruudaha rasmiga ah, sixidda kaysaska khaldamay ama diidmo hore la kulmay, turjumaadda dukumentiyada iyo kaysaska si sax ah luuqadaada hooyo, qabashada ballamaha faraha biometric appointment, ka jawaabidda interviewga, soo saaridda iyo buuxinta codsiyada fiisaha, ka jawaabidda iimaylada kala duwan, iyo talo bixinta arrimaha la xiriira interviewga iyo socdaalka. Haddaba, si aad u hesho adeeg hufan oo degdeg ah, fadlan horay u gaar xafiisyadeenna ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. Marka aad gelayso waraysi rasmi ah, gaar ahaan mid ku saabsan socdaalka ama codsigaaga magangelyo, waa muhiim inaad si buuxda u fahamto luuqadda uu sarkaalka ku waraysanaya ku hadlayo, iyo sidoo kale tan uu turjumaanku adeegsanayo. Inkastoo turjumaanku ujeedkiisu yahay inuu kuu fududeeyo xiriirka ama isgaarsiinta kaala dhaxaysa sarkaalka waraysiga qaadaya, haddana mararka qaar wuu ka leexan karaa ama si khaldan ayuu u gudbin karaa micnaha dhabta ah ee hadalkaaga. Qaladka noocaas ahna wuxuu sababi karaa in sarkaalka ku waraysanaya qaato faham qaldan, taasoo saamayn taban ku yeelan karta natiijada waraysiga. Sidoo kale, barashada iyo fahamka luuqadda Englishku waxay leedahay muhiimad gaar ah marka aad tagto Canada, waana luuqadda rasmiga ah ee dalka laga isticmaalo. Haddii ay ahaan lahayd xafiisyada dowladda, goobaha caafimaadka, dugsiyada iyo shaqooyinka intooda badan, haddii aadan si fiican u fahmin luuqadda, waxaa adkaan karta inaad si fudud ula xiriirto hay-adaha dowladda, ugana faa'iidaysato adeegyada dadweynaha, ama aad si xor ah ugu lug yeelato qaybaha bulshada. Dadka aan luuqaddan aqoonin waxay inta badan la kulmaan caqabado ay ka mid yihiin in aysan si sax ah u fahmin dukumentiyada ama shuruudaha sharciyeed, in aysan helin shaqooyinka xirfadaha ku dhisan, in aysan si fiican uga faa'iidaysan fursadaha waxbarasho, sidoo kale in ay dareemaan kalinimo iyo go'doon dhanka bulshada ah. Fahamka luuqadda lagugu waraysanayo iyo barashadeeda waa tiir muhiim ah markaad u safrayso Canada, waxayna kaa ilaalinaysaa dhibaatooyinka dhanka sharciga kaaga iman kara. Sidoo kale waxay kuu furaysaa albaabo badan oo dhanka nolosha ah. Haddaba, ku dadaal inaad sare u qaaddo xirfadaada luuqadeed si aad u dhisto mustaqbal ifaya. Fadlan, haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, waxaa naga xasuusin ah inaad muuqaalka laygarayso, saaxiibadaada la wadaagto si uu meelo fog u gaaro, dadkuna uga faa'iidaystaan. Wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska. Hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbinno aysan marna kuu dhaafin. Intaan talooyinkan kuwa lamida ku kulmi doonno, nabadgelyo.